dalaga ka soo go'o beeraha degmooyinka xira dhagaxley wisil iyo gawaan oo ku yaala bariga galmudug ayaa la filayaa in uu buuxdhaafiyo suuqyada magaalada Gaalkacyo sanada 2013 degmada xira dhagaxley oo ah degmo ku wanaagsan dhul beereedka ayaa hadda waxa ku taala in ka badan 10 beerood oo ay tabacadeen dadka deegaankaasi waxaana si xawli ah ugu sii qulqulaya degmadaasi ganacsato reer galmudug oo halkaasi u tagay iibsashada dhul baaxad leh si ay u beertaan qaar ka mid ah dhalinyarada degmada xira dhagaxley oo muddo dheer dhirta deegaanka si arxan darro ah dhuxul uga shiday ayaa hadda arintaasi u bedelay tabaca beeraha kadib cadaadis iyo dhaleecayn kaga timid shacabka deegaanada galmudug dhalinyaro badan oo ku kala nool deegaano ka tirsan galmudug tabar iyo taagna u la tabaca beerahooda ayaa hadda waxa ay taageero iyo dhiirigelin weyn ka heleen hay'adda ICRC oo ka caawisay qalab ay ka mid yihiin matoorada beeraha waraabiya gacanta ku qabta iyo wareegli ما بس kushiimada dhulka lagu bacrimiyo qalabka lagu falo beeraha iyo abuurka noocyadiisa kala duwan hay'adda ICRC oo shacabka galmudug dhinacyo badan ka caawisa ayaa hadda waxa ay wadaa hawlo lagu caawinayo dhalinyarada beeralayda deegaanada galmudug waxayna hadda caawimaad siisay dhalinyaro badan oo ku kala nool deegaano ay ka mid yihiin xira dhagaxley wisil gawaan bacaadweyne balibusle qaranrow iyo kuwa kale oo badan waxaana marka aad tagto deegaanadaasi qaarkood indhahaagu qabanayaan dalaga ka soo go'a beerahaas oo isugu jira digir galey masago qare liindhanaan cambe iyo moos oo lagu kala iibsanayo suuqyada degmooyinka aan soo xusay waxaana hawlahan dhalinyaradu ay ku beeranayso dhulkooda ay ku soo aadaysaa xilli badi dhirtii qiimaha lahayd dhuxul ahaan loo shiday isla markaana dhulka qaarkiis uu u muuqdo meel saxara ah waxaase iska cad in badi dhulka deegaanada galmudug uu u badan yahay dhul beereed waase haddii ay faanto ciddii lahayd liibaan ciise cumar TV-ga caalamiga ah Universal degmada Wisil ee gobolka Hobyo Yeah.